waxaan idinku soo dhaweynaynaa kulanka wadaaga aaga tamarta oo ah kulan aynu kaga arintisano sidii loo heli lahaa koronto jaban oo la isku halayn karo isla markaana bad qabta oo ah saddex shay oo aad u culus oo in la iswaafajiyaa ay waqti badan iyo inooga baahan tahay nidaamo badan iyo xeerar badan maadaama muddadii ugu dambeysay commissionka wasaaradda iyo quality controlka iyo shirkadaha iyo jaamacadaha dhammaanteen aynu ugu jiray hayaan dheer sidaynu u samayn lahayn hadafka sidii loo gaari lahaa oo ay ugu horeyso samayntii xeerka tamarta ay ku xigto siyaasadii tamarta ay ku xigtay istiraatiijiyadii tamarta ay ku xigtay nidaamintii regulationadii ka dhalanayay oo wasaaraddu waday qaybo commissionku waday qaybo quality controlkuna uu iminka isaguna uu door weyn ka qaatay oo uu 7 xeer nidaamiye isaguna wado marka hadaf weyn oo aynu gaarnay isaguna ahaa hadafka ka sii weynna wuxuu ahaa in commissionka tamarta iyo wasaaradduna ay dhimeen qiimihii korontada 50% taasoo ku timi wada shaqaynta dhammaanteen aynu ka wada shaqaynaynay oo ah hadaf aad iyo aad u weyn oo ay mudan tahay in loogu saacabiyo commissionka tamarta hadafka ay ka qaateen maadaama ay dhimeen sidoo kale shirkadaha korontada oo iyaguna si weyn loo shaqeeyo oo la'aantood aan la dhimi karayn iyo sidoo kale inaynu dardar galino isticmaalka tamarta cusboonaata in badan aynu ka soo hadlayna culeyskeeda qaaligeeda laakiin maanta culeysyada kale ee caalamiga ah soo kordhay ay horteena yimaadeen oo ay inagu fureen culeysyo kale marka taana waxa weeye maadaama aan maanta dareennay in guryaha shirkadaha dhammaanteen aan ka qayb qaadano gudubka tamarta cusboonaata waxaan rajaynaynaa inay nooga soo baxaan kulankan in la helo ama aynu caqabadaha cusub ee qorshayaasha cusub aynu isla garanno faham midaysan ka yeelano qorshe hawleed ka yeelano xoojinta wada shaqaynta sectorkana aynu xoojino inkastoo uu xoogeystay oo uu dhibada adag ku taagan yahay aynu halkaa ka sii wadno ilaalinta iyo tayeynta iyo standardskina quality controlku gacanta inoogu hayo maadaama waxa ugu yar aynu qaban karaa maanta ay tahay socketiskii oo regulationkiisa diyaar yahay oo caqabad ina wada haysata oo cid kooniya aan haysan ah inagoo dhaqaalaheenu yar yahay 9 baraysoo kala duwan 9 charger aynu isdaba wadno oo caqabad ina wada haysata shacab iyo shirkado iyo lacag badan inaga baxdo marka taas sidaynu ilaalin lahayn iyadana aynu gaadhno